waxaynu wax badan ka hadalnay waalidka xuquuqdiisa khudbadaynu kaga hadalnay iminka ka hor muxaadaraad baynu kaga hadalnay waxaan laakiin u qasday maanta si gaara inaan aabbaha uga hadlo inta badan hooyada si gaara waa looga hadlaa aabbaha iyo hooyadana waa laga wada hadlaa laakiin way yar tahay si gaara aabbaha in looga hadlo aabe muxuu yahay baan rabaa inaan ka hadlo maanta waxa dareemi karaa aabe waxa uu yahay qof aabihii ku garaadsaday oo la noolaaday adduunyadana uu kaga tegay baa dareemi kara aabuhu haddaan is iraahdo ka sheekee carabkaygu ma cabiri karo aabe wuxuu yahay ma cabiri karayo qiimaha aabuhu leeyahay aabuhu muxuu yahay aabe marka laga hadlayo waa deeq ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala oo dhabarkiisa uu kaa soo saaray oo dugsi iyo garab ilaahay kaaga dhigay inaad ku abtirsato ilaa qiyaami saaca waa qofka kuugu xanaanada badan hooyada dabadeed wax kasta oo aad haysato bacda allaah aabbahaa baad xusuusanaysaa wax kastoo aad haysato hooyadu hadday tahay naxariista gunteeda iyo meeshay raxmaddu ka soo burqanayso aabbuhuna waa akhlaaqda iyo noloshu meeshay ka dhalanayso haddii hooyadu ay tahay ubadka ciddii soo saaraysay oo rabbaynaysay aabbuhuna waa kii hoggaaminayey ee hoggaanka u hayay ee maamulayay aabbuhu bacda allaah waa tiirka adag aad ku tiirsan tahay tiirka adag bacda allaah aad ku tiirsan tahay waa aabbaha ama ogow ama ha ogaanin waa iftiinka kuu baxaya ee aqalka aad ku nooshahay iyo dunidan kuu ifaya aabbaha dhididkiisii iyo dhuuxiisii iyo dhiiggiisii iyo xooggiisii buu kugu soo koriyey adigoo biyo ah oo aan qorrax iyo gaajo iyo qabow iyo kulayl midna xamili karayn baad dhalatay saasuu kuu qaatay markaasuu lafdhabarta kuu dhigay markaasuu xooggiisii iyo cimrigiisii iyo caqligiisii iyo maalkiisii ku geliyey inaad qof nool oo micnole noqoto raallina uu ku faraxsan yahay xitaa inuu wax ku taray lama aha xitaa isagaa adiga iyo isaga marka laysu kiin eego isagaa ku jecel markuu gaboobo waxaad jeclaysanaysaa inuu iska hoydo markuu bukoodo waxaad jeclaysanaysaa inuu iska hoydo adiguse wuxuu jecel yahay inaanay qodaxi ku mudin buu jecel yahay inaad noolaatuu jecel yahay ku daawado inta aad joogto dunida haddii la wargelin lahaa adiga iyo ilmahaaga kee la horraysiiyaa xagga geerida aniga i horraysiiyuu odhan lahaa qofkii garanayaa garanaya aabbuhu waa udubdhexaadka tiirka usradu ay ku taagan tahay ubadka iyo ooridu ay ku taagan yihiin bal xusuuso ixsaanka aabbaha deeqda iyo talada aabbaha xusuuso sida uu yaraantaadii kuugu naxariistay kuu rabeeyey kuu koriyey noloshiisoo dhan kuu geliyey xusuuso sida markaad weynaatay uu kuu garab istaagay xusuuso taladiisa xusuuso suu kuu garab taagan yahay xusuuso ha ilaawin guurkaagii suu kuugu guuriyey xusuuso maalkiisa iyo naftiisa suu kuugu huray xusuuso abaalka caynkaasihi ee wanaagsan ma waxaan abaal wanaagsan ahayn baa lagu gudi karaa fahal jazaau lixsaan ila alixsaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waalidku jannada albaabadeeda waa midka bartanka ku jira ee dhexdhexaadka ah ninkii doonayo janno inuu galo albaabkaa ha dayaco ninkii doonayana albaabkaa ha ilaashada buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aabbuhu markuu dhinto carruurtu way agoomoobayaan waa laba qaybood kuwa yaryaroo sabi ah oo aan qaangaarin oo agoon xaqiiqo ah iyo kuwa qaangaaray oo agoon macnawiya ah iyagu qudhoodu waa ha waaweynaadeen laakiin waa agoomoobeen aabbahood markuu dhintay ubadku gabadh iyo wiil ma garanayo xaqa aabbuhu uu leeyahay ilaa aabbaha uu dhinto maalinta uu dhinto ee xabaal lagu rogo ee laga soo tago ayaad garanaysaa xaqa weyne aabbaha uu kugu leeyahay albaabada kugu furmaya wax badan buu maanta kaaga gufaysan yahay
doc waliba oo nolosha qaybaheeda ka mid ah buu ku gufaysan yahay laakiin ma ogin maalintuu banneeyo ee xabaasha ku hoydaad garanaysaa sida awgeed baa carabta xikmadaheeda waxaa ka mid ah abun waaxid hal aabbo keliya ayaa ka fiican kun macallin oo ummadda soo saara hal aabbo keliya ka fiican